أهلا وسهلا هاي صديقهم ولقاء تاريخ يربان دي سوق هذه أنا أظن ولقاء صديقن يرجلين بيجتها برنامج كيجني لكن مهدي ترمي وحاول الشيء كوني سجال بقول سجال لبدي مقالة طهران وضن كإيران هل كاسو وقتها ودرني وحد دجال كده حي إيران العراق وحجوري أما وقحي لحجة dad faqriya ay ahaayeen laakiin takaliya ku fikirey reerkoodu inay ku badda cagta aad u jeclaayeen footballerka hase yeeshee markuu soo weynaaday ayuu ilaa laga soo gaaray 2018 waxa uu ka ciyaariyay Persian League oo ah Iran ta dhexdeeda 2018 ciyaarihii adduunka ee lagu qabtay wadanka Ruushka ayuu semi final usoo gudbi lahaayeen quarter final usoo gudbi lahaayeen Iran hase yeeshee gool aad oo isagu banaanka yaala sida halka ka arkaysaan ayuu khasaariyay Iran oo dhan waxa looga nacay aadii dusha looga saaray keligii noo ciyaartoydii kale keligii qaar baa dil ku xukumay oo Iran ku dilayna naxdiniya makaagiya biyo jab isagoo awalba lacag badan qaadanay ayaa nasiib wanaag wuxuu tagay koox qadari ah oo Iran ugu lacag kuma siinayno ilaa muddo halkaas joogaysa isagoo naftiisa la soo cararay halka markuu ka ciyaaray koox yar oo Portugal ka dhisan ayaa soo qaadatay oo biilaag ah wuxuu dhaliyay waa laga yaabay wax goolasha iyo mucjisadu sameeyay kooxda yar ee Portugal kadibna kooxda caanka ee Porto la yiraahdo ayaa soo qaadatay bal qiyaasa wuxuu noqday laacibkii ciyaartooygii ugu wanaagsanaa Portugal kadibna caalamka oo dhan kooxihii ka jiray ayaa isha ku sameeyay sida Liverpool, Inter, Manchester United, kooxo fara badan Chelsea, Inter Milan ayuu u wareegay halkaas goolka aad arkayseen mar dhaweyto wacdarihii ka muujiyay inkastoo Champions League laga badiyay haddana wuxuu noqday ciyaaraha indhaha lagu hayo bal qiyaas adoo 27 jira footballka inta badan waxa laga fadhiistaa marka ay daadu tahay 32 ilaa 35 ay u badan yihiin inta badan waad soo leecaysaa 27 waxba uguma dhinano Persian Cup uu ka ciyaariyay maantana waxa uu Champions League final yimid oo la ciyaaray inkastoo PSG ka badisay haddana maanta inanka ama ninka odayga dhiirigelintiisu marnaba isdhigan haddaba meel walba caalamka joogtaan has dhigan aad baad u mahadsantihiin si usbuuca dambe